tan iyo markii Cristiano Ronaldo uu ka mid noqday kooxda Juventus, Paul Pogba wuxuu waday olole dib ugu laabanayo noloshiisii hore ee magaalada Turin. haddana wargeyska caanka ah ee ka soo baxa cariga Talyaaniga Tutto Sport wuxuu shaaca ka qaaday laba arrimood oo xiddigan dib ugu laaban karo kooxda Juventus. wargeyska ayaana sababta koowaad wuxuu ku sheegay wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola oo xiriir fiican la leh maamulka Juventus, door muhiim ahna ka qaadan kara dib u laabashada kooxda Bianconeri ee Paul Pogba. sababta labaad waxay noqonaysaa xiriirka fiican ee kala dhaxeeya Paul Pogba iyo xiddigaha kooxda Juventus, maadaama halgan iyo waqti dheer ay isla soo qaateen ka hor inta uusan ku biirin kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford sanadkii 2016 oo lacaga rikoor ah ku qaadatay. waxaana hubaal ah in Pogba xiriir wacan uusan la lahayn macallimka caanka ah ee Jose Mourinho. labadaasi sababood ayaana ugu weyn in Pogba dib ugu laabto magaalada Turin iyo kooxda Juventus si uu la midoobo Cristiano Ronaldo oo ka mid ah لاعبينta ugu wanaagsan dunida kubadda cagta. halkani waa Tolito Channel, fadlan subscribe dhaho channelkeena la garay sidoo kale ka bixi comment mahadsanid.